Cududa ciidankeenu waa dhulka badda iyo cirka iyadoo mid kasta ujeediisu yahay difaaca wadanka balse qorshe howleedkoodu waa mid qura waxayna mar walba ay xooga saaraan sidii ay u difaaci lahaayeen xeebaha Soomaaliya. Ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ayaa la aasaasay 1965. waxaa ciidanka badda uu ku leeyahay xarumo kala duwan caasimadda magaalada Muqdisho waxaana ka mid ahaa taliska ciidanka ilaalada badda iyo xeebaha Soomaaliya, dugsiga tababarka ee ciidanka badda iyo xarumo kale. waxaa hadda soo kabanaya tayada iyo cududii ay lahaayeen ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya. waxaa dib u dhis lagu sameeyay guud ahaan ciidanka iyo xarumihii ay lahaayeen iyo tababaro sare looga qaadayo tayada ciidanka. haddaba waxaa muhiim ah in la helo ciidanka badda iyo difaaca ilaalada xeebaha Soomaaliya oo leh cududii ay hore u lahaan jireen si loo difaaco doomanka iyo maraakiibta shisheeye ee goranaya khayraadka baddeena Soomaaliya. taliyihii hore ee ciidanka badda Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare ayaa ka warbixiyay taariikhda ciidanka badda. laba markab oo kantaal xambaare ahayd Berbera waxay ka duushay 21 bishii Juulaay 1977 raggi saaray waxaa ka mid ah Nuur Taqsiin iyo Cabdi Warsamahaas maanta jooga ka mid ah. waxaan u dirnay aniguna howlgeliyaan ka ahay operationkaas. waxaan u dirnay inay casab soo burburiyaan. hadda waxaan ka hadlaynaa waa taariikh cid ay dhib ku haysa ma jirto. taariikh weeyey halkaasna waa soo burburiyeen oo dhib weynay gaarsiiyeen. marka ciidanka baddu wax badan oo dalkan ka qabtay. taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed Cabdi Warsame Cismaan ayaa ka hadlay howlaha ciidanka iyo horumarada ay ku talaabsadeen. ciidanka badda iyo difaaca xeebaha waa xubin ka mid ah ciidamada qalabka sida. waxaana la aasaasay 1965 markaas oo lagu magac daray markay xeebta Berbera ama dekada Berbera ay ku soo xirteen darbeeda xambaariyaal iyo xeeb ilaaliyaal. munaasabadaas awgeed in maraakiibta halkaa timid ayaa maalintaas lagu cugsaday ama lagu beegay in lagu magac daro 10 Febraayo 1965. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeya Gaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa sheegay in ciidanka baddu uu ku tilaabsanayo horumaro. maanta dalkani dhibaatada meesha kaliya uu ka filnayo waa badda khayraadkeeda iyo maxaan ku raahdaa barwaaqada dhex yaala ee ummadda Soomaaliyeed cid u ilaalin lahayd. cid u ilaalinaysa ee arrintaas laga rabo ilaalinsana waa ciidanka badda. shaki igama jiro marka wax shaki igama jiro marxalad kasta aan ku suganahay xaaladda hadda ah mustaqbalka dawladda Soomaaliyeed ay ka rabto ciidanka badda inuu yahay ahmiyad aad iyo aad u ballaaran oo ninka Ilaahay ku sumo ciidankan uu noqon doono ciidan xoog leh awood u leh inuu ilaaliyo baddaas dheer. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay ku dadaalayso sidii ay u tayeen lahayd ciidanka badda Soomaaliyeed. dal hadduusan ciidan lahayn ma dhihi karna dal waay. ciidanka in la dhiso waa lafdhabar waa muhiimadda iyo jiritaanka ummadnimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed. waxay lafdhabar u tahay in ciidanka la dhiso. ciidanka baddana waxaan dhihi karnaa ciidamada qaybta ugu muhiimsan uu yahay sababtoo ah maadaama waxa laga sheekeynaya ay tahay xeebta ugu dheerna maanta 3,000 iyo dibyo iyo 300 dibyo aan leenahay. in ciidankan la dhiso waa muhiim. ciidamada badda Soomaaliya ayaa dib u soo ceshtay dugsigii lagu tababari jiray. sidoo kale waxa ay isu diyaarinayaan dhamaystirka qalabka difaaca xeebaha waxaana socda qorshe lagu hergelinayo hanaanka dhamaystirka tayada ciidanka badda Soomaaliyeed. Muuse Cusmaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.